tagayo waan ku dhowrayayo weli ka dhulsibayaay dhaqagacaala soo noqo. بسم الله الرحمن الرحيم كل تو عنو ونفسنا غيرت إنه وحرن شكر شرف official ترى لا يدنا جرس عطان حلي كستي وقت كستي إذا انتهى عاوة برنامج كوحة إجلاء قبل جلايا إسلام مركانا ومهد علينا يا وقت وذا خالقة نوال عبد الله إيجا السهرة ديرية نوال شو نوال قرح جنال كذا إيجا السهرة ديري هوسا يعني دين لقي دونا وأصحابها إسلام مركانا عن برنامج هذا إيجا وقت يدا قار البرنامج هذا إسلام دادهنو barnaamijkan gaarka ah waxaanu ku eegaynaa hooyo la yiraahdo Yaasmiin isla markaana 43 jir ahayd oo 24kii bishii dhaaftay January lagu dilay West London sababaha keenay iyo waliba dilkeeda waxa dhaliyay ayaan halkaan ku jeexjeexi doonaa marka hore ku soo dhawaada janaalkeena Shukr Sharaf Official Channel Sahra Diiriye ayaan marka hore siinayaa Sahra Diiriye dilka Yaasmiin isla markaana saygeeda uu dilay joornaalada wadanka ka soo baxa Britain lagu daabacay sidee kula muuqataa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكم السلام شكر شرف وحن كلو سلام يا نوال عبد الله يو channel كذا ما تقانا نوال official نوال غرح يعني وحواي ان شكدان ما عرفتي دي وشكوا ما عرفت الله سبحانه وتعالى نقول مكينو وشكرنا حدين ل قبضن ياسمين لده إن أيه هذا إن أيه أدق بهايستا مركا إن أيه ما عرفت هذا يمافرنا article كينو شكيفي عمل وعملنا كذا تلياني ها شكيفي و something like that iyo ninkuna wuxuu ahaa afartan kow jir buu ahaa iyadoo 43 jir bay ahayd saan sheegnay waxay isu lahaayeen laba wiil bay isu lahaayeen oo midna 16 jir midna jiro maaragtay 18 yacni marka waxa waaye ninkas ilmaha ay u dhashay inay gacantiisa ku dhimato waa wax aad u xanuun badan runtii ninkan intaas maaragtay la noolayd oo ilmaha isu dhasheen oo laafkaaga ahaa ama jaceylkaaga ahaa nolosha la qaybsatay gacantiisa ku dhimo aad iyo aad bay maaragtay u adag tahay ninku intaynu hadda ka ognay horta wuxuu ahaa ama darisku ay ka qoreen guryaha ay deganaayeen hadda reerku waxaa la yiri 12 sano ay dhisan yihiin waa guryahan mataqaanaa dib loo habeeyay oo darbiyadooda inta si fiican loo insulate gareeyay maaragtay حتى waxa loogu sound proof bay leeyihiin bay dhaheen guryuhu waa guryaha aan codku ka bixin ma fahamtay saas ay tahay abuse-ka uu gabadha ku haayay baa la yiri codku uu ka soo bixi jir iyadoo qaylinaysa oo maaragtay aad u qaylinaysa iyo asagoo qaylinaayo oo cod aad u dhadheer ku qaylinaya gabadhu waxay ahaan jirtaa la yiri gabar aad iyo aad u faraxsan oo happy aad dadka faraxsan oo dadka cid kasta culture kasta ay saaxiib la ahayd baa leeyahay dhaqan kasta dadka marka waxay dhaheen albaabkan garaaci jirnay markaan albaabka garaacno markuu ogaaday in dadku maqleen buu joojin jiray bay dhaheen inuu gabadha uu yacni dilo marka aad iyo aad buu wuxuu ahaa abusive nawaal ayaan siinaynaa nawaal warbixintan waad aragtay ka waran xaaladaha noocana dadka Soomaalida ah way ka dhaxdhacaan inkastoo nagu badneen sidee u aragtaa arrintan dhacday naxdinta leh gabadhani waxay horta originalkeed ka timi sida jaraydkan ka akhriyay Morocco oo waa dad muslim ninkana sida uu muuqdo wuxuu ka imaaday wadamadan Caribbean-ka ninkani gabadha gacanteeda ku dhimatay ninkeedii hore ay meesha u muuqdo si qoraan ay tahay si fiican meesha لأنه وسكول هورتيس أو يعني عيالكي قيلادودي نحرنتودي ددك درس كسو بخين oo markay dilayeen ciyaal ba arkay oo mid ugu siina xatinta badan taasa marka ninkani waxa la yiri intaas oo sano abuse oo socdo oo gabadhan ku jirto oo yani waxyaabo dhibaatooyin badan oo maaragtay sida Sahra ay sheegtayba guri cusub oo sound proof oo hinteedii qayladeedii baroorteeda laga maqlaayay dadka dariska soo qaraacayeen marka
walaahi waa arrin aad iyo aad u dhib badan dadkeena Soomaalidaana horta ka dhacdo oo ma la dhahayo oo dhicin ma aha oo yaan lockdown lagu jiray inta Soomaali ugu dilay waa London waa waxyaabo dhacay ka mid tahay oo nimanka waxa u keenana waa kolayba waa obsessive maaragtay behavior oo qofka controlaan maaragtay qofkina ayaga leeyihiin xoolo leeyihiin camal bay moodaan samee waxaan hadda kale waa ku dilaya camal marka waa qayb ka mid ah mental illness camal ee ka mid tahay ninka inuu noqdo maaragtay gabadh inuu controlo oo maaragtay oo abuse ku sameeyo marka laakiin maxaa u ogolaatay intaas sano abuse taasna ayadana waa mid kale u baahan in la baaro marka waxaan leeyahay shuguriyay dhibaatooyinka noocaasa dumarku way ku badan yihiin qabkana waxaa laga yaabaa in maaragtay isdhahdo caruurtan bal aan hadhigine dadka maaragtay anaga Soomaalideena waa dhahnaa furniinka waan ku degdegnaa marka ninka aragno waa iska furnaa laakiin dadku badanaa Carabaha iyo dadkaasi furniinka sheeko kala waay naagta markii la furo ma jecla furniinka iyo waxyaabahaas ku degdegaan oo waxay ka xigaan ninka abuse inay ku noolaadaan iyo dhibaatadaas inay ku noolaadaan bay ka xigaan aniga waxaan leeyahay walaahi waa arrin aad iyo aad u xun ilmaha ay ka tagtayna aad u saameynayaan faamilada ay ka tagtay hooyadana waa qabriga gashay marka labadii waalidba meesha way ku waayeen caruurta Nawaal nin damcay inuu badbaadiyo gabadha ayaa si kama ah oo 26 jir ah ayaa gaarigiisii jirsiyay sida ayuuna ku dhintay labadoodiina meesha ayay ku dhintay maalimadii Isniinta iyadoo caruurteeda iskuulka markaasi damacsaneed inay ku xirto meel dariiqa oo Samaafara ah Sahra Diiriye arrintani ka waran sidee gabdhaheena Soomaaliyeed oo kale Ilaahay ha naga hayo sidee ugu hortagi karaan hadii la arko nin dhaqamada noocaasi oo kale leh horta gabadha markii in yar aan ku noqday iskuulka ugu tagay oo meesha publica oo gabadha ku dilay 10 mindiyood buu ku dhuftay ninku 10 jeer ayuu mindida ku dhuftay mindi weyn dadka meesha joogay waxay damceenay ka qabtaan dadkana mindidii buu la soo aaday oo yiri way idinku dilayaa way ka carareen dadkii oo yaqaana sida inuu wal sheegay caruurtu aad bay u ooyeen oo ma taqaana way ooyeen mabda public oo ummadii oo dhan fiirinayso ayuu ku dilay dadkii ay damceen inay badbaadiyaan markii dambana ninkaas lorry driver ka ahaa yimid gaarigii buu ku soo kaxeeyay ma taqaana markuu soo kaxeeyay gaariga asaga Ilaahay amarkii ninkii oo gabadhii ku roran gabadhii iyo ninkiiba gaariga hoostiisa galeen gaariga hoostiisa markay galeen ninkii iyo gabadhii ninkii wuu dhintay gabadhii waxay dhaheen waa laga soo bixiyay anyway meeshii gabadhii waxa waaye si bir arka loo waxa la damcay tan afka loo galiyo nafta looga keenno adiga isku dayeen inay badbaadiyaan laakiin way badbaadiyeen waqtigeedii ayaa saas ku dhamaaday wiilasheeduna meeshii waxay tageen iyagoo ooyay yimaadeen oo maaragtay dhahayo hooyada iyo maaragtay u duceeya ma fahamtay iyo waxaasayto markay ka soo harto waxa waaye horta ninkan ma aha waxani waa jealousy masayr waaye stalker waaye qofku marka qofka obsessive buu ku noqday obsessive ku markuu ku noqdo qofka obsessive waa qofka ku yacni ku waasha ma يعني كواش قف كاسو سكده حركة mind control واي مسكحة كنترول هاي ما تقانا يعني من كسوماليات هذا واحد الكيس قبل بدن أو لفري أو سومالية أو نينكي وردية كهاي وكهاي إني نينكي اللي بقول ستبع المهجة نينكي لما كنت يعني النلاش يدي أردن وحواي أيو كنترول كهاي رالك ما نقنع رالي ما كان نقنايو المهجة نكلي مدح كيني كرتيد المهجة ده بمعتقنا المي حتى إنه قدروا إسقطية ونرهان كوا بدن المهجة نكلي اللي مدح كيني كرو هذا قبلها اللي دلي قبل بدن ووحى كتير أساس وكل الصومالي ده نينكو ونيمان يوروب تكلانا وقبل بدن UK يوروب تكلا نرويج هذا النقطة maraykanka xataa way ku dilaan meelo badan bay ku dilaan gabdhaha Soomaaliyeed lagu dilaa jarmalka lagu dilaa meel aan lagu dilin ma laha wadankii ugu dambeeyay Austria inuu ahaa labadii gabdhood Soomaalida wadanka Austria inuu ahaa jecla
Austria ku dilaan meel kasta ay ku dilaan marka waxyaalaha ay ku dilaan waxa ugu badan masayrka ugu badan adduunkana waxyaalaha niman badan baa dilaan gabdhaha hore ay qabeen caruurta xataa Pakistaaniinta way ku badan yihiin way dilaan xataa Birmingham iyo kuwa badan baa dilaan marka waxay ku dilaan waxa waaye lama nooc bay ku dilaan inta badan qaar waxa waaye maadaama gabdhaha iyo caruurta iyo hooyada xaquuq la siiyo markii la dhaho lacagta soo siiya ilmaha siisa inaysan lacag weydiisan way ku dilaan imaali iyo waali iyo hunguru xumo bay qaar u dilaan oo waxa waaye inta aanay lacag laga goyn lahaa nafta ha waaya asagu wuxuu ku xisaabtamin asagu adduunka ma joogaya kuma xisaabtamay marka shaydaan baa wax u qooshaya markaasuu ku dhaqaaqaya kanna midna wuxuu ku dilayaa obsessive inuu stalker ku noqdo gabadhii daba socdo oo ka ilaaliya nimanka kale gaad uu ka qabto waardiye uu ka qabto marka masayrkii iyo nacay iyo canaadkii ciilkii iyo carada uu qabo gabadha ayuu markaas waxa weeye uusan rabinin inay nolol kala yeelato hadday yeelatana waa dilayaa marka waa arrin aad khatar u ah bulshadeennana way ku dhex jirtaa bulshooyinka kalena way ku dhex jirtaa arrin aad u xun waaye runtii waa gartay nawaal waxaan rabaa gabadha booliiska ayay la xiriirtay muddo haatan laga joogo 2 sano ka hor sida warbixintu ku qoran waxay tiri qofkani nafteedan uga baqayaa sidoo kale wuxuu sameynayay kaamirooyin telefoonkeeda app baa ugu degsanaay oo dhaqdhaqaaqeeda iyo weliba meeshay cagta dhigtay ayuu cagta la dhigayay report bay ka gudbisay balse reportkeedii sidii la rabay gabadha looma badbaadin oo looma dhageysan hadda booliiskii waxaa la yiri arrintaasi ay gabadha inay dayaceen baa ma aragtay la saadaalinayaa wararka hordhac waxay sheegayaan sidee kula muuqataa arrinta gabadha maxay ahayd in loo sameeyo run ahaantii horta booliisku waxay fiiriyaan badanaa familiga se u dhaqmayaan haddii ay gabadha intay gudbisay report ay ninkaas ammaan iska siiso waxay ila tahay inay booliiska caawin lahaayeen badanaa waxay dhahaan haddii naagtay ninka soo celinayso gurigii warningay badanaa siinaa waxay dhahaan 10 kilomitir ha usoo dhammaan gabadha agteedaba 10 kilomitir ha soo istaaginaada dhahaa badanaa markii oo dacwada noocaas ay gabadha gudbiso markii laga soo tago hadday arkaan dadkani way kula socdaan somehow way og yihiin waxa qofku sameynaya ninkii naga badan waxaa jira ninkii inta dacweeyeen markii la dhahay ninkaasaan dhahanay ha u dhawaanin ninkii guriga joogay ilmo kale guriga keenay ilmo cunug kalaaba dana dhashtayba marka badanaa ilada waxay isku dayaan inay space yar siiyaan ku adkeynin hadday arkaan wixii kala dhamaanina taas waa mid ku kalena waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta badanaa wadankan wax saas looma qabto haddee yankee gabdha cadaan waxaa arkay oo ayagana saas loo dayaca oo domestic abuse-ka waddankani booliiska waxba saas kama qabtaan badanaa marka waa mid ugu liitaanba horta lagu eedeeyo badanaa marka waxaan leeyahay kolleyba aaday u dayaceen inay waxaa la rabay ku adkeeyaan sharciyadoona wax ka bedelaan haday arkaan agti ninka soo celinayso inay warning siiyaan dhahaan ninkani haddaba hadduu soo noqday wixii dhacaa maxay kula tahay maxaan ka qaban karnaa hadduu saan kuula joogo marka waxyaaba sahradii saaxiibteed fariinay u dirtay ayay booliiska ula wadaagtay maray kaga sheekeynaysay in telefoonkeedii iyo xogteedii oo dhan u dhaadhacay runtii ninka gurigeeda iyo nolosheeda uuna ka marnayn cabasho iyo dhibaato ayay saaxiibteed la wadaagtay dhibka ay dareemayso iyadoo markaasina ka baqayso inuu dilo bal ka wara sahra arrinta meesha waxa ka dhacay horta saaxiibteed way la wadaagtay arrinta way la wadaagtay saaxiibteed oo waxay sheegtay inuu maaragtay wuxuu tiri inuu idiluu rabaa bay tiri I think sax waxaan u malaynayaa bay tiri waayo kaamarada markuu duuba wax kastoo ay samaysiyo iyaga yacnihii dhaqdhaqaaqeedoo dhan uu kaamarooyinka uu ka duubto uu fiidiyool ka duubo waxay tiri waxa waaye waxaan u malaynayaa inuu idili rabo marka arrintan booliiska hadday la wareegtay horta waxa waaye ay la wadaagtay booliisku hadda waxaa ku qoran joornaalka oo arkayna way dayaceen they fail baa la yiri inay ay mataqaanaa ay gabadhaas nabadgelyadeeda ay mataqaanaa ay badbaadiyaan ka qabtaan waxaana ognahay nawaal hadda sharciyadu way isbedeleen waxay isbedeleen dumarka waagii hore wax waaye ninka intay mataqaanaa way
fiiri ninka hadduu la nool yahay gabadha hadda sharciga waa la isbedelay markiiba ay telefoonka qabsato waagii hore dumarku intay nimanka dacweeyaan bay haddana soo ceshan jireen hadda waxba lagama aqbalayo sharcigaas wuu isbedelay 2 years ago 3 years ago buu isbedelay naagta mar alla markay telefoonka qabsato ninka waxa waaye xataa iyada warriga ma dhegeysanaya because every single weeks intaas oo dumaraa dhinta maadaama ay taa dhimato waxa waaye kow telefoonka ay qabsato waxaa dawladdu hadda ku dadaashaa boolisku badbaadada qofka in la sugo gabadhan ninku haddaba lama noolay taasta waxa waaye waxay maaragtay waxa waaye banaanku ka ilaalsanayay sidaas darteed buu banaanka ugu dilay oo guriga nin u jooga ma ahayn marka domestic violence ma ahayn ninkanu ex buu ahaa maadaama uu ex ahaa يعني أو كاميرا مالكس تقول حتى واجس ويسكعير سوى تنلو شيء وحواي يعني ستوكر بقوها ستوكر كله وقف جرو كقولنا الماء وقف بنانك كاتشوجا أو عادي كده بس عضا أو مركو ما دام كده بس عضا يصير درت ولدي وين الشيء إنه ديل يرابو أي تري وحرم مالنا إنه ديل يرابو مركا بوليس كحي هذين يسجن ترى صدان ميلو تشوجا بيرات صدان وأنت information كقاطر أي منطقة مركبة ay wax ka qabtaa taasna way dayac bay noqotay runtii waxaan aragnaa wadamadan qurbaha kale gabadhu markay kiiska noocaasa qofkii nolosha ka dhaxaysay isku xumaadaan gabdhaha iyo kale hooyadaas iyo carruurteeda kale hidden address baa la geeyaa address qarsan baa la geeyaa magaalo kale la geeyaa siisan ma aragtay dhibaato gabadha ilmaha ugu dhicin marka arrintaas oo kale xal bay noqon lahayd wanaagsan sidaan aragno qurbaha marka dhibaatooyinka ka dhex dhaca qoysaska markay isku xumaadaan nawaad وهرون ويسميان UK يعني وشرعي جراء يسميان لكن قبل أن وحي لو سمين وهي وحاسي وحي وبهانت هاي investigation بدن كل يبغى حد والسعودة investigation السعودة وهي وبارتان السعودة مركز أنا هدي أو نين كان بنان كجوسة سهرة شكتي وحام لا يابنا سيدو جرو وكوه لي جانس وكسو قالوا وكاميروين كوحرتا مركز وح maaragtay ila tahay inuu ninkan fogeen oo meel fog jirin oo gabadhani malaha marba maaragtay guriga ka fogeen ani u maleynaayo hadii uu ninka guriga ka maqnaa 2 sano in kala maqnaayeen wallahi waxay ila tahay ama maaragtay in oo sheekada isbedel lahayd waxay noqon lahayd wax yar saac oo kala gaab ah kala fogaan lahaayeen dadka markay isku dhow yihiin moor maaragtay ay maxaan ku dhahay is u gaarsadaan oo hadda jealousy iyo waxaas waxa keenay wili waxba ninkan ugu cararo rajo qabe gabadh inuu ku soo noqdo qaf oo ma aha qalbiga ka raystay ma ahayn u baahanta si fiican wili wuxuu ahay rabo meesha maaragtay gabadhi abuse kan markaan meesha akhriyay waxaan wuxuu ahaa abuse long socday waqti dheer oo aad u dheer socday marka ninkaani wuxuu كليبا يعني قبلي واي gabadhani kaa tagtay ma fahantay marka waxaan u maleynayaa maaragtay meesha dayac uu jiray dayacana wuxuu u jiray malaha in maaragtay sheekadani ay kala dhamaanin dadkani yani waxa u baahan in la soo ogaado baaritaanka socday ka mid ah سهران gabadii ayaan soo gaarnay sahra maxaad ku daraysaa gabdhaha Soomaaliyeed macailooyinka islaamka Ilaahay badbaadiyo maxaa gabdhaha la gudboon dhibaatooyinka noocaas Ilaahay naga hayo hadii oo qofka nolosha noocaas ilaa qofka aad guursanayso ma garan kartid sidoo kula dhaqmayo gabadha waxa la gudboon horta kow nafteeda iyo nafta ilmaheeda yaa ba mas'uuliyad ka saaran tahay markay mas'uuliyad ka saaran tahay qofkan dhaqankiisa iyo inaysan marna ma taqaanaa aysan isdheeganin oo qofkan ay wax ku darsantay dhaqankiisa markay aragtay inuu isbedelay iyo sidoo u dhaqmaayaba markastaba waa inuu horta dadka dad ugu dhowna u sheegtaa marka aysan ogolaanin in maaragtay lagu kor socdo ama maaragtay ama af ha noqoto ama aadin ha noqoto ama maaragtay loo dhaarto markay loo dhaartaba inay horta sheekada yeesay inay ciyaar u qaadataa maaha haddayba aragto qofka inuu wax yar xataa maxaad samaysay yaa kula hadlay iyo buuciis iyo magaca sheekada bilaabato markiiba waa inay baqdaa gabadhu waa inay baqdaa gabadhu
runtii run waa inay u baqdaa waayo qofka markaad aragtidba inuu cid kula hadashay iyo daba socdo oo carruurtu ma aamusto mogta carruurtu waa caqli miiran haddii aabbuhu weydiiyo oo dhaho hooyadii yaa u yimaada waxaas yaa u yimaada oo carruurta u sheegto aabba saasuuna yiri dhahaan hooyadu waa inaysan dhayalsan waa inay mataqaanaa aysan dhayalsan because ilmaha wuu dhalay wuu imaanayaa wuu arkayaa laakiin oo ilmaha xaq buu leeyahay inuu arko laakiin ilmaha waxa shuhuumiisa ahayn markuu galo businesskiisa ahayn oo weydiiyo ciday la hadashay iyo ciday ku xiran tahay markaa waxaa la rabaa hooyadu inay si dhab u baqdo hadallada ninkana dib uga baqdo dhaqanka iyo ninkana ay isha ku hayso uga baxdo ninku hadduu inta aad kala tagtaan uu banaanka kaa maro markaas wuu kaa maray mideeda kale naagaha markii la abiyus gareeyo dumarka waxa waaye dadka ama sidaba dadka la abiyus gareeyo waxa waaye waa dad haamada laga dilay oo maaragtay la dilay qofka marka waaye mental manipulation maadaama lagu hayo waxa lagu leeyahay waqti dheer bay ku qaadataa abiyuska say uga baxaan dadka qaar bay leeyihiin maaragtay qolada science 20 sano ay ku qaadataa say uga baxaan because qofkan waxa waaye tactic iyo sir buu isticmaalaya qofkan uu maaragtay maskaxda kaga qabsado oo lagu leeyahay baby waa ku jeclaa waxa lagu keenay aniga san ku jeclaa raalli ahaw hadba madax laga dhunkanayo hadiyad yar iyo wax macnaheedu wax material baa lagu sartaa dumarka oo hadba maaragtay meel looga soo dhacayo qofku markuu abuse yaqaano ama controller yahay wuu yaqaanaa meesha sida dadka mental manipulationka loogu sameeyo ama maskaxda looga waalo marka yaan la isdhiganin baa la leeyahay be afraid waaye gabadhii maxaad ku daraysaa sahra aad baad u mahadsantahay sahra diiriye maskax kubcisa waa run sidai sahra sheegtay qofka abuserka ah koodii hore abuse kuma sameynaya qofka waxay qaadanaya waqti dheer ay qaadanaysaa inuu qofka maskaxdiisa manipulation ku sameeyo oo dilooda qofki waxaan leeyahay gabdhahaas abuska qof abuse ku abusaya naftaada uma fiicno waxaa samaysaa ka jognaaw kana maaragtay caruurtaadii naftaada priority-gii qof gacan ku qaadayana qof jecel meesha sameeyaalo waxaa waaye wax oo maaragtay khatar leh qofkaas uu ku dili karaa naftaada maaragtay priority saar naftaada ilaasho saasaan anigu u tagaya waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay nawaal cabdullaahi iyo sahra diiriye nawaal qurux channel iyo sahra diiriye oo maskax kubcisa ayaa barnaamijka ila falanqeynayay yaasmiin oo saygeeda 24 Juun Westland ku dilay iyo saygeedana isla qudhiisa halkaas dad damcay inay badbaadiyaan barnaamijkii waa naga intaas shukri sharaf ayaan kala socoteen akhyaarta inagu xir dib intaan ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo alaykum salaam كي يقفي وش شيء يتغير